Afhayeenkii hore ee ururka Al-Qaacida ayaa guri ku kacaya $1.3 milyan loogu iibiyey magaalada London, iyadoo ninkan uu si dhow ula shaqayn jiray hogaamiyihii laga takhalusay ee ururka Osama bin Laden. Wargeyska Daily Mail ayaa tibiyey in ninka laga soo daayay xabsi ku yaala dalka Mareykanka sababo la xiriira xanuunka Covid-19, waxaana la sheegay inuu qabo xanuuno sababa in neefsiga ku adkaado iyo cayilkiisa. Adel Abdelbari oo 60 jir ah ayaa muddo 25 sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Mareykanka, waxaana loo xiray tuhun la xiriira qaraxyada lagu beegsaday safaaradaha Mareykanka ee wadamada Kenya iyo Tanzania sanadkii 1998. Weeraradaas oo ay ku dhinteen in ka badan 200 oo ruux. Warbaahinta waxa ay qortay in cabsi laga qabo inuu ku dhaco Covid-19 darteed, maadaama uu xanuuno kala qabo loo sii daayay dib ayuuna ugu soo laabtay dalka Ingiriiska. Waxyaabaha la soo tabiyey waxaa ka mid ah in Adel Abdelbari iyo qoyskiisa ay degan yihiin guri qiimihiisa lagu sheegay $1.3 milyan, waxaana bixiyey golaha deegaanka Maida Vale oo ah degmo dhacda waqooyiga London.